شغالنا كنت عايز تطبط كلام اللي هو وهاي 16 شغال عالي ما جرتي شغال قبط على راي waxaan soo bartay anigu beeraha beertayadii halkaa weey hooyaday iyo aabahay waxay qodan jireen baalkaagu bay dib u sanadkii u bahadhu ku bixi aqoontii halkaa ka soo baratay beertii ni kula noqodeen dhalinyartu ma ogoladeen shaqa kale doonayaan oo meel sare iyo wax kale raadsanayaan markaa khaladaadku la leeyahay waxa weeye way ka dhacdaa marmarka qaarkood inta waa la soo dhayaa qabyaalad wax dhacdaa weliba xafiisyada batakula le xafiisyada dowladda waa ka dhacdaa laakiin mid baan la sheegay haddaad soo baratay imika waxay nagu dhabtay dadka mataqaanaa laydhka gurigu wuu goy gurigayga laydhkiisu wuu goy mid baanu doondooni dee ma aha waa in dadka guriga waa inay laydhka yaqaanin waa in dhismaha yaqaanin waa inay wax kastoo aqalka lagu qabanaya yaqaanin oo waxan aad ka shaqayn kartaa laakiin waxaa waynu ka hadhawanayna markaa dadkii shaqada qabanaya noo tijirin mushkiladda dhalinyarta ma haysta waxaweye shaqalaanta la sheegay ma jirtee wax dadkii qabanaya la leeyahay beerta ku noqo oo beerta seen ilahaatee nin baanu yaman ku arkay beerahan tegin ceelkaa waxaan odayay beerteeda dhexdeeda buuri 7 sannadood iminkaan biyihii ka gaadhay buuri mishiinna waan saaraya waayo beerahan soo bartay marka waxaa loo baahan yahay halkan dhibtu ka taagan tahay shaqalaanta waxa weeye dowlad looma wada shaqeeyo waxbaan soo barto dowladdu ma loo shaqaynaya waa been waxaasi xoloma mid kale xirfad waa cajaayib technical schools wasiirkii waxbarashadu uu joogaayo way nagu yari waa inuu dadku nijaarada yaqaana xandaadada ardaydu demaxa inna dad yaro madmadow intuu kusoo geerish galan ilan baa maraykan igala soo hadlo wuxuu waxaan jaamacada soo baranaya waxa ay fiicnaa inaan geerish galo marka lacag badan baa samayn kari lahaa marka waxaa inaad geerishkaa ka shaqayso ma garanaysaa inaad dad madmadow xidhato ma doonaysa inantu waxay tiri kuuliga iyo maxay dhismuun baa lagu kuguma injineer baad soo baratay injineer noqoo dhagax halkaa dhig sidaa u dhigtahay aqalka musacamil dhisanaya dee injineerka noqoo dhisanay waxaa la leeyahay markaa exactly technical schools way nagu yidhaha haddii xitaa la helo dhalinyarteenu waxay doonaysaa jaamacad baan ka soo baxay shaarcad baan qaadanaya kursi dheer baan ku fadhiisanaya that's war geerishada ka shaqeeya war wastaarada ka shaqeeya nijaarada ka shaqeeya halkay bahashu fadhidina waa halkaa